dadkii lahaa way ka tageen labada neef oo dhitaa oo haraabo hoomu yahay xaqaaba la geeyo hoomu inuu baxda abaarta ku dhufatay deegaanada xeebaha Soomaaliland ee gobolada Saaxil, Salal, Maroodi Jeex iyo Awdal waa mid marba marka ka dambaysa ka sii daraysa. xoolaha ay haysteen qoysaskaasi ayaa maalin kasta u dhimanaya tarab maadaama ay abaartu laba jirsatay. kuwooda ruqda ee markaasi tahli waaya socodka waxa lagaga tagaa goob cidla ah. laba neef oo aad u il daran oo markaasi kici kari la oo wadada ag fadhiya maarigaaga kamid ahaayeen ها walaal aragay ka hadheen labadaasi way tal waxay u hadheen labada ama inay maalin walba 20 neef man ka yimaada oo ay abaartu saa u saameysay ugu taal u hadhay xitaa biyaha dameeraan ugu rarnaan ugu geynaa halkay ku hadhaan bood adduunyo weeyna waan ka soo aqla beela marka way dhimanayaan way dhimanayaan qiyaas ahaan 30 kii cisho ugu dambeeyay ari intee leeg baa ka dhintay oo abaarta iyo gaajada u dhintay iyo biyaraanta waxaan u malaynayaa inay 40 neef noqonayso 40 neef inta la joogo uun baan ka hadlaya 40 neef noqonayso maalin walba waxun baa ka hadhay oo dhimanaya waxa dad ku soo noqonaya ma wixii kolka ka hadhay taal sidoo kale waxa halis ku jira nolosha qoysaskaasi gaar ahaan kuwooga maatida caruurta iyo haweenka deegaanada xeebaha ayaa ay nafaqa darrabaani soo food saartay waana mid sahayan karta nolosha dadkaasi waxayna u baahan yihiin gurmad joogto ah inta raxmaadka eebe laga gaadhayo wayaagteeda xawa warbaan haystaaka meel halkaas oo dhexdan ka soo guuray biyo baad midna ma hayo halkii aan ku soo dhacayna biyo ka taaganahay marka waan oomanahay ubadka jaqiiqda hayaan sita dumarka la lamaanay bilaa nafaqadana waan wataa bilaa dhiigba iiga hadheen waa kuwa taagan waxaan ku qulaamay midna ma hayo biyo laan bay iga daran xoolo way naga wada hadheen gurmadka degdega biyo u daran iyo raashin labadaas way u daran yihiin guri baa u daran iyo biyo labada laga maarsamayni waa biyo iyo raashinka weeyaan waa ka caafimaadna ma hayaan halkan imika cisho dhawayta gabadh baa ku umushay way dhiig baxdo orba dhiig joojin laga waayo way caafimaad male meesho waxba ma yaalaan waa qaxarka baawurka dalbatay argeysa kaaga ma sokoyaan Djibouti baawurku intuu soo socdaba way dhiig baxaysaa inta ku dhimatay inta la qaaday la ambalaasay laba isleeg weeyaan waa ka in adeero aad bay u liidan nafaqa darro way jirtaa xoog bay nafaqa darro u jirtaa caruurta iyo dumarka ku badan tahay dadka waaweyn labadaas ku badan tahay xumad way jirtaa xumad baa haysa xumadan dadka haysa xoolaha haysa dadkana way haysaa cali oo kamida qoysaska degan Bildaaley jiraariya ayaa kaga leeday intii ay abaarahani jireen xiriyaha qaarkoodna waa ay haawanayaan oo xoolihii ayaaba ka dhamaaday waa arkaysaan oo nala arkaysaan xoolaha baqtigooda geedka saaran waxaan u saarnay dawaanu iskaga weecino hadii aan dhulka dhig lahayn bahalaha yimaada ee cuna bahalaha aakhirkana caruurta cunaya marka waanu iska basrin oo wana ka inta saaran dawa abaarta xoolaha gaaja laysay iyo abaar laba jira xoolaha ay soo laysay waa abaar wax xoolaha la geed walbana way saareen giga walbana way yaala aniga xoolaha iga baxay imka tiradoodii oo sugan idin sheeg baay laakiin boqol kor bay u dhaaftay orgigaas waa orgi gaariga ugu weyn xoolaha wixii kalena way dhinteen noocaas daba u dhiman jirin in badan buu waa ki ugu nolol dambeynay waa orgi shanjira laba habeen buu noolaa marka cidina ma wax laga bariyayna waa la garan waa ka baqtay tirada baqtiday aniga xoolaha adu reerayga halkan degan marka nin walba wixii 3 meelood laga dhigo 2 meelood saasay u baqtay intii kalena waa taa waabka hoos fadhida waa kuwa iyagoo nool waabka hoos fadhiya baadna ma hayaan biyana ma hayaan carafna ma hayaan dadkii baba imika xoolii daba socda haddaan dee ilaahay ka soo gaarin yaa markaa hay'adaha waxaanu ka cabsanaynaa in maadeeraya dee imika xoolii hadalkoodu waa dhammaadayba waa in dadka lagu soo gurmada hay-adda khayriga ee Al-Raxma ayaa gurmad biyo dhaamisa gaarsiisay qaar ka mida deegaanada xeebaha Soomaaliland waxaana ka mida dadka ka faa'iideystay biyo dhaamiskaasi kuwa ku nool deegaanada Foodka, Bildaaley iyo Xayaabley waana kuwan iyagoo hay-adda Al-Raxma u mahadnaqaya hay-adda Al-Raxma ee noo keentay biyaha socda anaga aad u ooman
يا ما هذينا خير الله سيو وحنا ربنا إن وحنا وحكم خبر إن نوكيتو بل يدي بولغو مي مش أبغى بقول توي وإني أنا أركان يدي أي نوكير ليه هي وصل بدوين على حنا وصل بدوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maxay hay'adii hay'adda la yiraahdo Al-Raxma maalintii hore baaqi fiicnaan dirnay si fiican bay nooga soo jawaabtay biyo inoo keentay biyihii si fiican baa naloo soo gaadhay oo dhaqsale waxaan doonaynaa biyihii waa noo keenay in maxay hay'adda nala ogaado oo baadkiina naloo soo gaadho ayaan doonaynaa inta raxmaadka Ilaahay imanaya Ilaahay naga soo jabinay abaarta waxaan doonaynaa in nala ogaado oo aan nala ilaawin oo markasta nalaga warhayo ayaanu doonaynaa xoolina sidii un bay nooga jilicsan xayeeshna weeyaan sidii bay xayeeshu yihiin marka waxaan doonaynaa maxay hay'adda baad iyo biyaba in maxay hay'adda naloo si fiican loogu keeno waana mahadnaqaynaa hay'adda Al-Raxma Ilaahay halkii ay ka soo saartay Ilaahay wax khayr qaba inuu ugu bedelo u galiyo biyaba deeqdi ugu horeysay biyaha Al-Raxma noo soo keentay imika ayaa noogu horeeyay wax deeq soo gaala ayagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Ilaahayna waan ugu xamdinaqaynaa Mukhtaar Mursal Xiin Home Cable TV deegaanada xeebta Somaliland